موبيلا إيجا مقن يبش أو ودناها حبط كله فنا واحد سكوح إيجا ما سقلت ده ومدلين في الساحة ما أود بشمرك عداليسي وحيدنا ما كل مرة وامك ما حبضها كده على المشي البلط تلف في كيس مركور محمد كوجدي بس تلفونك أفقوا كلمة صورة 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 اللي في الفيلم يا مركب ودعنا نحدين له مركزته مقالك أسكري دلي ساعيب كيس أو أي أهاين أسكر إسكو عطب تاني آياتي مد كديب دودير أو كسابسن مغناسيها تليفون لحي طبن مورانكينا waxaa isu bedelay dhacdo argagax leh waana in mid kamid ah askarta uu go'aansaday inuu nolosha dhaafiyo kan kale isagoona ka toogtay qalbiga ugu horeen waxaa la waayay taleefon A16 uu milkiyadiisu lahaa eedeysane Abshir Ukaash Cabdi oo isaguna ku doodayay markaasi inuu taleefonkiisa u dhiibay Daahir Xasan Maclow oo hadda marxuum ah Rabbiha u naxariistay dood dheer kadib riboodkaas isqabqabsiga ayaa gaaray taliye unugu ciidanka xoogga dalka maadaama la joogo goobta waajibka difaaca qaranka looga wakiishay oo ah deegaanka Sawiid iyo Canoole ee gobolka Shabeellaha Hoose gartii oo socota lana baadi goobayo si degan mobilka halkaasna ay xaaja marayso waa xanaaqay eedeysane Abshir Ukaash waana ka soo horjeestay garta ay wadaan taliye unugi iyo taliye kooxdiisa xabad uu ka riday AK47 ayaana wadnaha kaga dhacday Allah u naxariistay marxuum Daahir Xasan Macow oo isla goobta Sawiid iyo Canoole ku geeriyooday 16kii bishii 12aad 2025 مدن قدومي قرصور المحكمة شرفت له إذا سنة أبشر وحد لي صاحب كيس ويسكو شقادة هاين ظاهر حسن معلوم مرون كدلك وحاكي يعني مدن قدومي تليفونا كما قناة كليا تليفون كيسو أولي بي مرحومك كبعدنا مركو وحيرك بعد وصونا قضي تليفون كي سي مركو يرينا تليفون كاغا ما أركن يقف كلام كودي بدوداس كبعدي وحاكو صوب حي تليو أونوغي أيغا حكومة دعودي وقلي wuxuu ogaaday in ay u baahan tahay tala kale ka sareyso wuxuu u gudbiyay taliye kooxi wadana gudoomiye garta iyadoo loo fadhiyo oo dacwadu isaga dhibanaha ka yahay taleefanka ka maqan yahay la dhageysanayo ayuu wuxuu dhahay taleefankayga caaw ma la hooyanay sidee waa u dhimanay waa istaagay wadnuhu xabad ugu dhuftay meel kale ixtaamaa wadnaha xabadda meesha ku taal wadana gudoomiye dood hadda uu sheegayo qoriga waa istaagay qoriga xabad ka fakatay waxaas wax kama jiraano inaan macquul ahayn maxkamadda waa u sharxi jirnay haddana qiraalka maxkamadda ay ka qorta fadhiga hore saas ma waa ka duwan yahay wadana gudoomiye marka fiirisid ficilka uu sameeyay qaabka uu sameeyay marka fiirisid psychology ahaan markaan baarnay gudoomiye waxa noo soo baxday marka garta la fadhiyayba asi maskaxdiisa sheekaysteen maskaxdiisa wuxuu u sheegay inay gacantiisa ay ka baxday in kiiska ama xaaladda meesha ka socda oo asaga go'aan ku lahayn in go'aanka uu u gaari doono qof kale saddexdaas oo isku dhufsaday asoo qori haysta marka in saddexdaas uu sugo oo waqti dheer ku qaadato wuxuu naftiisa u sheegay inay daciifnimo tahay mudane gudoomiye maskaxdiisa iyo naftiisa wuxuu ka dhaadhiciyay isla markii inuu action sameeyo waa istaagay bilaa hadal bilaa yani go'aan inta aan loo soo gaarin oo xaqiisa la siininba wadnuhu ku dhuftay waa dilay mudane gudoomiye markii uu dilay wuu hubsaday inay xabaddu ku dhacday ka bacdi qorigu dhigay waa carar waa baxay waa la soo qabtay mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh taleefanku uu dilay waa A16 $120 ka soo bixiyay waa Samsung generation kiisa A16 waa mudane gudoomiye taleefankaas oo saaxiibkiisa kala qiimo badnaaday bini aadana sameeyay 73 ilaa hadda 53 sano waa 53 sano bini aadana taleefankan soo sameeyay laakiin eedeysanaha waxa la qiimo batay taleefanka la qiimo batay oo bini aadamkiisa sameeyay naftiisana kala qiimo batay wadana gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh moobela iga maqan iyo bush oo wadnaha xabad ku dhufana wax isku xiga ma wax isku xiga karana maaha waa mashriq iyo maghrib ay kala jiraan sababtoo ah dhibana waay uu dacwadiisa way socotay ilaa heer maxkamadda ay soo gaartay ahayd saan loo fariisto oo xaqiisa uu helo ninkuu eedeynayo hadda marxuumka ah Allah yarxama meeshii lagu dhihi lahaa ma gashay mise ma galin mise dooda ka qabta uu soo afjar waa dilay dacwad dhan buu soo afjar mudane gudoomiye waxaan iska sheegayno annaga maana alifan cadeema u hayna eedeysanuhu ayaa ku dooday in xabaddu fakatay dilkana uusan kas ahayn isagana ay hanti ka maqneed
una caraysnaa. shaqalada uma dilin si sax ma u dishay markii may sax uma dilin laakiin baalootada ka soo uma dhufanin aniga ay fakata macnaa see kaaga fakartay macnaa qaabkee meesha waa wada fadhini garaa lagu jiray gartiyadoo lagu jiray astaag maagan marka astaag maagan baalootada ay fakatay aawsi ku dhacday arrinta mobilka maxaa waay mobilka sax waa soo qabsanay sidee macnaa mobilku siga u dhiibi kadibna anigu waa ka tagay marka uu imaaday mobilkayga si dhaana ma arkin oo dhaa gartiyaa lagu fadhiistay oo garti lagu jiraa si baalaato meesha u dhacday marka wax xanaaqdamay marka baalaato dariis anigu waxanaagan baday macnaa aniga hadda anina xanaag raw teleeko waxay telefoon muddo mu gudbiyo laan maano oo u dacwooday waxa aniga oo u dacwo mar jeedis ma laan aniga oo u dacwadeeda lagu jiray garteeda lagu jiray teleeko waxaana waxa ku siinay dhaayba xaajada teleeko wax ma agaalino xabada maxaa fakihay marka aniga iyo istaaga magaalada marka istaagayna baalooto si ku dhacday taliyaashii ku hoolanaa baarista iyo xalinta muranka taleefanka maqan gartana u fadhiyey marka uu falka dhacayay ayaa markhaatiyaal ka ahaa kiiskan oo la dhageystay. waxaan kala socdaa si wax u dhaceen daahir iyo ninka liira abshir cokaash cabdi dacwadu waxay soo gudbiyey axmed cilmi aadan marka dacwada magala soo gudbi labadooda waxay isku qabsadeen telefoon marka ninka waxaa laga qaadanaya abshir oo ahay kan waxaa ka qaadanaya maxaa waaye axmed cilmi aadan nuga taranugiisa oo ahay labadooda nugaskunuga ahay axmedka iyo abshir iyo ninka liira daahir nugaskunuga ahayn riboodka la keenay dacwaduna gudbi aan qaaday intaan dhexdhexaadinaane abshirka ninka walaalkay daahir saxdaro ku dilay intaas wax ka ogaay abshirka iyo ninka liira axmedka iyo daahirka talka waxa waay teleeko waxa u tahay mobilka oo wala leeyahay aska lahay telefoonka abshir aska lahay marka muxuu leeyahay telefoonka abshir aska lahay ninka waxa ka qaadanaya macnaha taranugiisa waay taliunugiisa telefoonka waa soo dhiibay xilli wax laga qaaday iyo xilli kale meesha ma joogin ma maqnaanay magama joogin ribada ku maqnaay waa imaaday labadana dacwadooda wax ay keen axmedka ku keen waxa labadana isaashito telefonkuna maqan yahay ayna markaa dhexdhexaaday intaan dhexdhexaadina ninka liira abshir cokaash cabdi iyo daahir dhexdooda ku jira gartooda intaan dhexdhexaadina ninkaan abshira booday ninkaan walaalkay daahir ilaa u naxariisto si xaqdaro ku dilo muxuu leeyahay marka xabad ku dhifan maxaa sabab telefonka la siiyay telefonka xaajada loo fadhiyo telefonka ma hayno telefonka la fadhiyo xaajada haye inta garta ku jira ninkaan booday adaliisay wixii niman ku dhimanaa waa hada abshirka ninkaan walaalkay mugdaar sida ku dhintay meeqa xabada ka dhacday meesha albalot axmedka ku keenay asigana muxuu yahay taranugiisa waxaad sheegtay abshir inuu xabad ridiyey xabadii uu ridiyana marxuumka oo u dhintay xabadii marxuumka ay ku dhacday adigu ma heshid xabadda dhacday inay fakatay iyo inuu kas u ridiyo adigu ma heshid soo maaha maxamed ma fakan si barro ku dilo xabad oo ku talagalay maxamed ku talagalay maadsanta abshir cukaasha waxaa loo haystaa inuu daahir dilo adiga intee joogtay seen wax u dhaceen aniga waxaan joogay daahir horta iyo abshir labadana taliyan ugu ahaa taliyanuga u tahay horta abshir waxuu ka imaaday afkuwi abaar halka socod habeenimo difaacu nuugu imaaday aniga iyo daahir iyo askari kaloo xagga jira saadaq la dhaho oo noo imaaday meesha wada fariisanay abshir telefonkiisa oo waxa u soo taagay ana u soo taagay telefonkiisa ana inta soo gaarin difaaca la wada fadhiis saadaq ay qaaday saadaq wuxuu u dhiyay marxuumka dhimana abshir waa baxay wuxuu dhaanay umtaan kala casho soo arkay makeena cashan doonayna saddexdooda waa soo raacay saddexdooda markay israaceen waxa ay soo laabtay abshir telefonkii maarta wada telefonkada marxuumka ayaan dhahay daahir imaaday telefonka ninkan aawayaan dhahay waa siiyay aniga telefonkiisa asna wuxuu dhahay ma soo siin dhimanaha dad isku haysteen telefonka telefonka waxa ay gudbina telefonka waxa uu soo gudbiyay telefonka waxa uu keenay intii telefonka waxa uu ka qaaday reportkii abshir gadaal u booday ninkan hal baarto ku dhuftay saasaa u dhaceen kabacdina qoray u tuuro telefonkiisa marka hore maxay kugu dhibay sabab telefonka afgooyo ka imaada sawirada soo galowda sawirada la firfirinaya marka meesha joogtaan markaas intee waay waa sibi caanad sibi eedaysanu xabad ayuu ridiyey sidaad sheegtay oo qorigiisa ka dhacday xabadaasi inay kas oo u ridiyey iyo in ay ka fakatay adigu kala ma heshid soo maaha kasay wax cadaawad ah ama dagaal hore oo ka dhaxeeyay ma jirin soo maaha saan ogaamay labadooru waxay isweydaarsadeen oo xabada ah ayaa jira soo maaha maya ana difaac oo askari lagu dilay taagnaa see wax u dhaceen dha telefoon oo loo dilay oo daari macluul abshir ukaash
mid kale afguy ku maqneen afguy ay ka imaadeen afguy markii laga imaado daahir oo marxuumka ah allah yaa biino kan daahirow mugdo ay bii makaan karaan tooshii dhib abshir u kaasha wax dhahay oo mobilkan qaado biino kan marka aniga difaaca saarnaa inaan mobilka loo dhiibiyo in kale warka masheekar laakiin gadaashan dood waa ahaadiyaa mobilka ii dhiibnaa oo aniga macnaha meel inta raashinka soo arkay raashinkaas aadayna mobilka saadaqa u dhiibtay aniga ma dhiibnaa saadaqa raas mobilkaada markii saas u dhaay ayaa marka dood waxay gaartay tal unug labadooda iska unug ayaan tal unugii talekoohay u raaday talekoohay waa imaad iyagoo garta lagu jira amar dood sii dheeraad waa istaaganeen markii saas aan kortagayna daahir waa istaaga may abshir u kaash waa istaaga markuu istaagayna meesha hadda oo mobilka liisay way abadan qof bahay u dhaa waa istaaga bad markuu istaagayna ama ku furtay habada baraac si iyo ku dhifta xabada daahir macluum xabada ayaa ka dhaco Soomaa xabada ilaa 6 xabadood gaaraya ayaa goobtaas ka dhaco Soomaa allaga qodo 6 xabadood ayaa goobtaas ka dhaco xabadahaas 6 xabadood ah waxa ku dhinta marxuun ayaa ku dhinta Soomaa ma isku mid ma xabada haye marxuumka markay uu dhintay ka bacdi xabadaha dhaceen laakiin marxuumka xabadiisa horeys oo lagu leeyahay marxuumka waxa ku dhacay 3 xabadood ku dhacda Soomaa may haye hal baaloota ku dhacday hal baaloota ku dhacday baalootadaas yaa rida cid rida ma hesha baalootada koo marxuum ku dhacday ninkaas waa abshir u kashfay baraha galkan uga wakiilka ahaa taliska sahanka iyo sirdoonka xoogga dalka ayaa dhageysigan dacwadeed ku biiriyay macluumaadka natiijada baarista eedeysana markuu goobta difaaca soo gaaray wuxuu sameeyay oo ugu horeysay ficiloosi waxay ahayd inuu la hadlay marxuumka kuna dhahay daahir uu telefoonkayga si kadib daahir uu dhahay inuu aan telefoonka ama haayo ee telefoonka waxa haayo Saadiq Xuseen kadib arinta meeshii buuq baa ka bilowday tali uniga fadhiyo lagu magacaabo Axmed Cilmi ayaa arintii wuxuu isku dayay inuu dhaxdhaxaadiyo Axmed Cilmi wuxuu la hadlay eedeysane Abshir Cukaash wuxuuna ku dhahay isdeji telefoonkaadu ka maqan yahay si tartiib aan kugu raadinayo hadduu daahirka ahayn waan kaa qaaday haddii cid kale haysana anaa kaaga qaaday arinta iyadoo halka ay marayso ayaa waxaa dhacday arintii markuu oo dhaxdhaxaadiyay Axmed Cilmi oo arintina rabo inuu xalliyo ayaa waxaa xanaaqay eedeysanaha maanta waxa ka jira Abshir Cukaash kadib Abshir Cukaash wuxuu sameeyay in uu goobtii ka istaago oo yiraahdo والله إن المحلها موبيلك يعاول لسحنين هذا بوقي وحاكوصو بحي تلي كوحة لقوم بقعابو حسين عبد الكريم عبدو يا عبد القادر عبد جدي أصلا تلي أنو كلا قابتي مادين أرنتي بحل كسمي إسلام ويسورتي قل ويسي وحا ماد سنة أيا وحوس بذي أصو سمينيو حناق يفلعين كان محلها كسور جستي حلكي سمينيين تلي أنوجيدي بقولت الجوتي تلي أنوجس كميدها يتلي كوحة قريو لبودي أمانكو فرتي كدبوحو هالبالو تكوريدي مرحومك وحين كهلا شيء وضنها مدن قدومية مركان بارني إيدي سنها وحان نوع داتي إن إيدي سنها أوغل فالدنبيات كاسو كحسن أيضا قرآن إلهي أو حلاقي قوة الله سورة البقرة سورة المائدة eedeysanu wuxuu ku sheegay inuu dil geystay balse kas uusan u geysan ayuu ku sheegay Soomaa may waxaad la kulantay od wareysatay maragayaalku dhammaantood hal war kuma sheegin waryaalo kala bedelan ayay ku sheegeen oo inay xabado badan ka dhaceen ayay ku sheegeen Soomaa may waa madsanta xeer laliye maxamed cabdullaahi khaliif ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha lagu xukumo dil toogasho ah taasi oo ah qisaasta allaha u naxariistee marxuum daahir xasan maclow maxkamaddu waxaan u soo gudbinnay 3 markhaati oo goobjoog ahaayeen oo si cad u sheegeen inuu dilku ahaa dil bareera ulakac ah oo si ulakac ah u dilay marxuumka waxaan sidoo kale soo bandhignay qiraalkiisii oo maxkamadda uu ka hor qirtay fadhigii koowaad
sidoo kale marag muujin ay ka mid yihiin qorigii uu falka ku geystay iyo baarihii kiiskaba. mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, sheekada hadda isku difaaca ah oo anoo kacaya xabadda fakatay iyo waa sheeko uu hadda aliftay inay macquul ahaydna asiga waa ogyahay, annagana waa ognahay, maxkamaddan way og tahay. laakiin warka saxdiisa waxay tahay mudan guddoomiye siduu qiraalka ku sheegay waay. hadday maxkamadda la fiiriso meesha ugu dambeyso qiraalku wuxuu leeyahay gartay markii loo fadhiyey marxuumka su-aasha la weydiiyey qoriga muxuu ahaa telefoonka aawo la yidhi ayuu meeshan ugu soo taguu yidhi saasaan ku xanaaqay aan xabadda ugu dhuftay. wuxuu sheegay inuu xanaaqay. xanaaq iyo hub isku meel ma geli jirinba, weligoodna isku meel ma gelayn. sababtoo ah Ethiopia ku soo tababartay mudan guddoomiye 1 sano ku dhawaadu maqnaa, wax la barayo xirada ugu xareysnaa wax kale ma ahayn. markii laga soo tago cashirada uu fasalka ku baranayay iyo fitnessko jirkiisa la diyaarinayay, markii laga soo tago wax la barayo waxay ahayd amarka sida loo qaato iyo sidoo kale in emotionkiisa uu xakameeyo. asiga iyo shacabku waxay ku kala duwan yihiin. hubu wataa, hubka markii loo dhiibayna waa loo tababaray inuu emotionkiisa xakameeyo, waa la baray. marmarsiyo uma noqoto mudan guddoomiye. mudan guddoomiye qaamuuska ciidanka maba ku jirtaba. waa xanaaqay saasaan xabad ku rido qof ku dilay, qaamuuska maba noogu jirtaba. sababtoo ah ciidanku nin kastaba hub uu mas-uul ka yahay. ninka ugu weyn taangii wada, kan ugu yarna bastooladu haystaa. hadduu xanaaqasee leela shacabka kale barobar in la dhameeyaa waay. mudan guddoomiye ninka diyaaradda F-16 wado miiga hadduu qof ka xanaajiyo caawa GPRS inta u soo gashto uu subaxii inta soo kaciyo halgan taal ku dhufana kadibna waa xanaaquu leeyahay. taangiga ninka wado wuu kormarsiinaaba, waa xanaaquu leeyahay. BKM-ka ninka wato silisku ku dhameynaa. mudan guddoomiye waa laga taxadiray, waa xanaaqay inaan qof loo dilin, waa laga taxadiray. tababarka saasaa la isku geliyaa. dadka shacabka hadday wejiga ku candhuufaan xitaa inuu xabad ridaa maaha. waa sax waa bini aadan emotion waa leeyahay, waa xanaaqi karaa. laakiin qoriga inta qof u dhiibatid afeertamay. maxaa yeelay haddaa isfeertaan waa lidin kala celinaa, xanaaqina waa kaa baabaa. laakiin xabaddu hadday mar baxdo qofkii aakhiruu tegey. mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, marxuumku dhintay cadow ma ahayn. nin saaxiibkiisuu ahaa, hal difaacay wada joogeen. duruuf ku kalifi karta ma jirin telefoon ka maqnaada kaliya inuu u dilo, maba jirinba. telefoonku suuquu yaallaa, $120 uu joogaa, waa la soo gedi karaa. laakiin nafta suuqa ma taal. nafta mar hadday baxdo waa dhammaatay. qad qaamat qiyaamatuhu. mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, ilaahay wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قف مسلم نينكي سكسة أدلا شنتا سهرتال سيدا درتد مدن قدومية وحان عدسانينا إلا حكومة دل توغشو أو قصاص المرحوم ظاهر حسن معلو إيضا الله عكسنا آية بقول تضباطا إيسديدات سورة البقرة محكمة دوما سنت. qareenka ayaa isna gabagabada fadhigan ka sheegay inay tixgelin doonaan go'aanka maxkamadda ka soo baxa. mudana guddoomiye garsoorayaal, eedaysanaha aan difaacayo eediisii haddii loo jeedsho wuxuu ku jawaabay dood sharci ayaan qabaa. doodi sharci wuxuu sheegiyey in xabadda kas uusan u ridin ee kama uu u ridiyey. waxaa la hor keenay maxkamadda, waxaa horta horay loogu akhriyey qiraalkiisa ahaa oo horay looga qoray garsoorka hortiisa. qiraalkaas ka mid ma ahayn, xabaddu waa iga fakatay, ka mid ma ahayn. waxaa la hor keenay maragyaal maxkamadda ay dhaarisay, waxna ka warsatay dhacdada goobtaas ka dhacday. waxay sheegeen xabaddaasu su-aalihii aan su'aalay waxay sheegeen inay kas ahayd, balse kama aysan ahayn. annagu ama abukaatuhu dadka sharciga ayuu ku difaacayaa, ma ogiye kama difaaciyo. xujo cad haddii qofka loo keeno oo sharciga waafaqsan
lana caddeeyo qofkaani falkan inuu geystay maraggii ilaahay uu sheegiyey oo wa ashhiduu daway cadlin uu yidhina ay ku marag furaan waa xujo cad abukaatana mataqaan ka weeci ma kariyo abukaatuhu wixii sharci darro ah oo eedaysanaha lagula xadgudbayo in uu mataqaan ka doodo ayuu xaq u leeyahay balse walac sharci ah oo ay qof kale u geysatay waxa waayey uma magacowna inuu xaqaasi weecsho goobta uma taagna haddiiba uunan inkirsanayn dilkii haddii uunaba inkirsanayn ee waxa uu ku doodayay ay ahaayeen kas wax uma dilin maxkamaddana laga hor caddeeyey in uu kas u diliyey dhacdada noocaasa maxkamadda go'aan ha ka gaarto anugu sharci ayaan u taagnaa inaan ku difaaco sharciga maxkamaddu waa mahadsanta gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifitaax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho